ناكو هداد مقشد مدح وينوا وطني لبه هداد مقشد كرد يشوا وطني صدح هداد مقشد عقيل لضوا وطني أفر هداد مقشد أفاهم كوا وطني وشن هداد مقشد شيخ يضوا وطني واللي هداد مقشد لان قاب كوا كلمية taageerayaashan ayaa ahaa kuwa hore uga mid ahaa xisbiga talada haya kulmiye waxayna maanta cadeeyeen inay gabi ahaanba ku biireen xisbiga isbedel doonka wadani taageerayaashan ayaa ku kala sugan deegaanada Samakaab Dar es Salaam ee degmada Yagoor ee gobolka Sool waxaana munaasabada soo dhaweynay uu xisbiga wadani ugu qabtay taageerayaashaasi deegaanada Samakaab iyo Dar es Salaam ee degmada Yagoor ee gobolka Sool waxaana munaasabadahaasi kala qayb galay taageerayaashaasi gudoomiyaha xisbiga wadani ee degmada Yagoor ee gobolka Sool Maxamed Qaybdiid dhammaan taageerayaasha maantana ay ku biireen xisbiga wadani ay cod iyo cudud bala garab taagnaan doonaan xisbiga wadani iyagoo soo dhaweeyay gudoomiyaha bahweynta nabadda ee gobolka Sool Marwa Carfi Jaamac oo maalmadii shalay ku biirtay xisbiga wadani iyagoo sheegay inay miisaan weyn ku leedahay gobolka Sool anigoo ah gudoomiyihii degmada tuulada Samakaab waxaanu maanta halkan ku qabanaynaa xaflad qurux badan oo ku saabsan ajinteedu yahay taageerayaal fara badan oo ku soo biiray xisbigan wadani baanu halkan maanta xaflad ugu qabanaynaa waxaan leeyahay dhammaan taageerayaasha wadani waa mahadsantihiin kuwii nagala soo qayb galay kuwii hore noola joogay kuwa noo yimiba aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan idin salaamaynaa dhawaada xisbiga isbedel doonka aad iyo aadna idin salaamaya dhammaan waxaan salaamayaa dadka reer Tuulo Samakaab aad iyo aadna idin ku hambalyeynaya hambaliyo xisbigu ha guuleysto idinka ayaanu idin dhiiri gelinaynaa maalin kasta iyo goob kasta iyo saacad kasta way soo imanaynaa xisbigu ha guuleysto haddii abadkiisa leeyahay waxa laala wixii wadaniya ayaa anagu taageersanay raacsanahay wadani baan u nahay haddaanu nahay magaalada odayaasha waxgaradka wadaadada intaba anagu waxaanu reer wadani waana soo dhaweynaynaa waana taageeraynaa dhalinta sharafta badan ubaxa dalka oo aan kullayba mar walba anagu qiimo iyo qaayaba aanu hayno oo maanta gartay in ay yihiin qayb kamida xisbiga wadani oo u soo digarogtay kana soo digarogtay xisbiga hadda talada ay ka sii leecayso ee kulmiye waxaan leenahay xisbigiinii baa timaadeen dadkiinii iyo dalkiinii iyo dantiinniiba haddaad maanta fahanteen oo aynu isla fahanay oo isla qaadanay waxaan idinku soo dhaweynaynaa gacmo furan qalbi furan iyo weji furanba gobolkeenna Sool qofkii ugu miisaanka badnaa hadda aynu oran karno laascaanood iyo halka qof waa isku miisaan in ay shalay iyada laftigeedu soo digartay Carfi aad baad ula socotaan todoba hadaad maqashid tala xumanagu ma jirto oo sideed hadaad maqashid saqaadjankunagu ma jiro sagaal hadaad maqashid suugi waayay waa kulmiye oo wadani waa dayax yaa dabooli kara oo wadani waa xidig yaa xisaabin kara oo wadani waa ciid yaa shaydin kara oo wadani waa buur yaa ka boodi kara waxaan dhammaan salaamayaa marti sharafta soo digarogtay dhalinyaradan fikirkooda fiican ee saliimka ee maskaxdooda tuujiyay ee ka fikiray aayaha mustaqbalka aayahooda iyo dalkooda iyo deegaankooda dhalinyarada halkan aad ku arkaysaan xidhan astaanta isboortiga kubadda cagta oo ka soo digarogtay xafiiska kulmiye iyagoo soo digarogtay xafiiska wadani waxaan ka cadeynayaa inaan ka soo digarognay xafiiska xisbiga kulmiye u soo digarognay xisbiga wadani waxaa soo dhow doorashadii cid kasta ayba kaarkaaga aad ugu guurayso barwaaqada iyo muxuu ahaa nimcada ee xornimada ku helayso kaarkaaga ku minti diyaarso ka soo digarogtay xafiiska kulmiye oo ay ujeedkoodu yahay inay u digarogtaan xafiiska isbedel doonka ah ee wadani annaguna taageeradayada iyo wadannimada iyo haybadayada meel kasta aan la joogno waan ku kalsoonahay nin kasta oo taliyo oo ciidanow shaqadaadu waa amniga qaranka ayaad mas'uul ka tahay xataa amniga gudaha shaqo kuma lihid booliis baa u jooga waxaan idin leenahay xuduudiina soo dhaafina haddii kale dee waayo annaguna sharci baan idin adeegsan doonaa